Hi guys, السلام عليكم وأنا قاعد أفتح إبراهيم halkan nagala socotaan waxa weeye Somaltech maanta waxaan ka hadli doonaa 10 aad u muhiim ah oo ku saabsan maxay ahayd qaabka PowerPoint-iskaaga aad uga dhiganaysid macnaha kuwa aad kaliya adigu aad maamushay ama waxaad ka bedeshay modification-ka oo read only aad uga dhigaysid dadka kaliyatina ay akhriskun ay geli karaan macnaha akhrisan karaan okay hadaba si aad uga dhigtid macnaha read only waxaad tagaysaa maxay ahayd xaggan soo furaysaa kadibna waxaad ku dhufanaysaa save as okay save as marka ku dhufato waxaad u bixinaysaa magaca aad doonaysid let's say aan sample oo kale sample marka waxaad tagaysaa xaggan ay ku qoran tahay tools kadibna waxaad ku dhufanaysaa general options-ka okay kadibna halkay ku qoran tahay remove automatically creating personal information-ka tigtaad saaraysaa kadibna xagga hore waxaad gelinaysaa password-ka aad ku furaysid okay xagga dambe waxaad gelinaysaa password-ka aad modification-ka ku sameynaysid kadibna waxaad oranaysaa okay kadib waxaad gelinaysaa password-ka aad ku furaysid baad dib u gelinaysaa okay haddana waxaad gelinaysaa password-ka aad modification-ka ku sameynaysid okay okay inta markaan dhameeyo waan save gareeyay macnaheedu weeye okay inta markaad samayso waxaad soo furaysaa file-kii si aad u hubisid macnaha inaad password-ka u samaysayeen kale aan ku tusay macnaha inuu ku shaqeynayeen kale okay waxaan gelinayaa password-kii aan ku furayay okay password-kan ku furay markaan geliyo waxaan odhanayaa read only maadaama read only uu kaliya uu furan yahay okay haddaan doonayo wax ka bedelo xaggan aan arkaysa ama aan wax ku qoro tusaale kale ma bedelmayso macnaha waxaan ka dhigay read only baan ka dhigay qofku uu akhrisan karaya haddii aan doonayo modification ku sameeyna password kale modification kan gelinayaa haddaba fadlan 10 maanta sidaas inuu weeyay haddii aad channel-kan ka heshay subscribe saar si aad u heshid 10 kuwan lamida waa maasantay